الله وبركاته صحات مeel kasta joogtaan soo dhawaada insha Allah waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan anaga waa fiicannahay alxamdulilah ilaahay mahad oo dhan u sugnaatay maanta waxaan inoo wadaa muuqaal cusub muuqaalkeena cusub wuxuu ku saabsan yahay daily routine ama waxyaalaha maanta qaban doono insha Allah quraac yar oo fudud xagan sida arkaysaan morningkii ahayd markaan ciyaalka Saciid iskoolka geeyay soo noqday xagan sida arkaysaan waxaan ku sameysanayaa quraac waxaan ka sameynayaa ani ukun la dalacaan dhahaa laakiin dadka qaar waxay dhahaan laga yaabo shakshuuka marka ani si yar oo fudud u sameynayaa paanka waxaa ku shubay wax yar oo saliid ah iyo ukunta waxaan ka wadaa astaghfir sorry yaanyada gasaca ku jirto halfka isticmaalay kabacdi waxaa ku daray spinachka frozenka ah intaas isku dalacay wax yar oo maraq digaag wax yar oo xawaaji ah toon waxa haysataa ku darsanay insha Allah hadda dhinaca waxaan kaga daraa waxa waa basbaas soo manager basbaaska inaan ku wada qaso hooyo ila quraacanays quraacda marka dhinaceeda ugu maan darin intaas ka bacdi waxaan ku dari doonaa ukun laba xabo ukun ama taqaana soo tumay ama aan soo garacan ka wada soo labadii xabo ukunta xagga sare kaga daadinaya kabacdi waxaan ku dari doonaa cheese intaas kadibna marka soo quraacdo waxyaalaha sameyn doona idin la wadaagi doona insha Allah marka wataasa quraacda saas inoo soo baxday ma sha Allah aad ay u macaaneed wallahi laga sheekeyn karo waxaan rajeynayaa inay wax ka faa'iideen labadan nin meesha kursiga igu fadhiisa arkay ilmaha ku ciyaarayeen intaas ka bacdi alaabta soo aruuriyay wixii lagu quraacdo jikada meelaha uu oolay kabacdi intaas yar soo dhaqaaya insha Allah maana record kareynin anigoo dhaqaayay waxaasi because waxaan siraaday weel dhaqowgaada dadkanita way ka daalin malaaya iska dhaaf insha Allah so biidhnillah waxaan rajeynayaa inaa videogayga uu dhiirigelin iyo wax lowla wax yar baa Allah ka dhigay wax ka faa'iidaan insha Allah oo adigana ku dhiirigeliya ama quraac yar oo fudud ka faa'iiday sida loo sameeyo marka kuukarka laga sheekeyn karo wasaqqa saaran so waxaa sameynaa waa soo dhaqaa waa soo hagaajinayaa kabacdi anigu hadda waxaan idin tusi doonaa soo hagaajiyo soo dhaqay insha Allah awish inay sidaa iskaga fududeedo mataqaanaa gacanta inaan saa u saaro dhac way isdhaqeena arag aan idin dhaho laakiin ma aanin waqti badanaa galay waa la soo dhaqay jikadana kasoo shaqeeyay hadda waa kaasa iyadoo idin leeyahay waa soo hagaajiyay kuukarkii hadaan sidoo kale waa soo hagaajiyay kabacdi waxaa sameeyay qadayra sameeyay tuna pasta mana idin la wadaagin soo qadeynay waa soo baxnay marka townka u socdaa maanta marka ila yara daawada magaaladayda yar oo quruxda badan insha Allah soo idin sii tusaya isii raaco inta ka tagayna townka meesha shopping ka soo iibsan doono
hey waa soo noqday marka inta badan shopping aan sameysanayo waxaasi waa duubi kari waayay ciyaal markaa wadid iyo shopping sameynaysid so stressful. Stresska wuxuu noqonayaa bismillah lagama sheekeyn kara. Marka waxaa waaye hadda guriga imaanay waa nasanay alaabtii idii tusaaya. Marka waxaan soo iibsaday insha Allah waxaa laga yaabaa inaa ciyaal haysatid wiilal sideedoo kaleeto waxyaalahan kasoo iibsaday Primark 2 shoo baa galay. Primark waxaa galay iyo H&M waxsaas kama soo iibsanin laakiin dharkan oo dhan arkaysa intiisa badan waxaa kasoo iibsaday Primark. Marka Primark waxaa waaye dharkiisa waa iska jaban yahay laakiin quality-giisa waa laga fiican yahay laga yaabaa. Marka waa inta badan waxaan soo iibsaday waxaa waaye dharka winterka finaanadahaasi iyo mataqaana jacket. markuu kasa jaakadaas oo kale wuxuu soo iibiyay Yaasir Yare iyo finaanadaas oo Saciid ah. Marka inta badan ciyaalkay ahaayeen waxaa u soo iibiyay Primark. meela aragteen markaa gashid dharkiisa intooda badan waxaa ku qoran £5, £4, £6. laakiin markaa dad finaanada way qurux badan tahay kan waasaan wuna jaban yahay inta badan lacagtooda. laakiin markaa tagtid tilka ama meesha lacagta lagu bixiyo waxay isku tagtaa lagu leeyahay £100 keen 10 mar ina soo qaadato laga yaabo £100 keen. marka walaa caadi maahan. marka insha Allah khair badan ay idin rajeynaa inta soo gaarteen. aad ayay u mahadsantahay daawashadaada. please subscribe iyo like tan ii daawo. khair badan ay idinkaga tagayaa insha Allah as always. amaanada Ilaahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.